ilaa 5 bilood oo geed iigu xiran yahay balwaday kan bilaabatay hawshiisa weligaa dhakhtar ma geyn awoodaan ku geeyan waaye bukaankii harkii waan ka furay cabdullaahi ibraahim oo 22 jir waxa uu bilaabatay nolol cusub hadda daqiiqadahan wuxuu noqday qof helay oo u soo noqotay xorriyaddii dhaqdhaqaaqiisa dhibaatada haysata hadda waa kana geedu ku xiran yahay wax ma cunaayo maawiyada maarsada 12 habeen iyo maalin qayla waagu ugu bariya qoraxdana ugu dhacda muddo 5 biloodana xariga usaas geedka igu taagay wax aan ku dabiib ama aan ku daawo ama dhakhtar ku geey waawe awal labada lugood labada gacmood wuu ka xiraa waa talaabta koobaad haddana waxaan geynaynaa xabeeb psychiatric hospital balwada cuni jiray waxa waaye kaniin la leeyahay karaami dol xashiish iyo calaq wax la sheegay mare oo la duubayo la shidanayo la cabay sida sigaarka iyo cirbad la lahay karaami dol anigu ma kala aqaan qadka waa ka baxa marka is duro oo howlahaas isticmaalo isagoo mid camal la ii keena waranka qadka la dhigaa isagoo meel iska yaalo wax sheegta la waa hatta wiilkaas haddaan maanta annaga u imaanahayn saasuu xiran yahay lugihii wuu ka xiran yahay dhaqdhaqaaq ma jiro socodkii wuu gabay saasuu socdaa marka insha allah waxaan geynaynaa isbitaalka حباب waxa ugu duceynaa wax qeyr qaba Allah siiya ilaahay cadawga iyo xaasidka Allah ka qabto ilaahay jina fardoos Allah ku bishaaray maanta maruga uga fujiya ilaahay jidkiisa jeexba garabka taaganahay wiilka ugu fiican laga dhaqay حباب waxa ugu duceynaa ilaahay ma sha Allah hortiis qeyr dibtiis qeyr ilaahay jina fardoos Allah ugu bishaaray saaka korba uga qaaday ilaahay inoo korba tusin مسلمك ومعنا إلهي أصلنا وقرقار آخريات من الدفكة يستانا عبد باور تداود ودوا كفول وهاجر واحد تخترع حتى الكور ونرفع أما تملك موقف مايا صوبتك وكي ويسيب حيتها تبر هاي تلي ذا وحبة وما تبر واحد كوجيب تبر هوين قالوا وكلمينا أنا قلت تبر تلي كوكي سواويس وين كوجيب